su-aasheena 554 waxay leedahay gabadhani aabahay geela zakadiisa wiilal uu awoowo u yahay buu siiyaa ee diinta maxay ka qabtaa si kale hadii loo dhigo caruurta aad dhashay iyo kuway sii dhaleen sakadu ma ku baxdaa jawaabtu waxa weeye culimadu say u badan yihiin jumhuurtoodu qabaan afarta imaam baa kamida waxay leeyihiin zakada lama siin karo asalkii ku dhalay iyo wixii adi ka farcamay asalka ku dhalay waa aabaha iyo awowyada iyo ayeeyooyinka wixii aad ka soo jeeday wixii aad dhashayna waa caruurtaadii waxay sii dhaleen labada tiir ee midna ka timid midna adi ka farcamay zaka kuma baxday qabaan culimada badan kood laakiin qaar kamida waxay leeyihiin hadii shuruud la helo xaaladka qaar kood way banaanaan kartaa مثلا ilmuhu haduusan nafaqada aabihi asal ahaan wax weeye waxa loo diidayo waalidku haduu baahan yahay oo faqiir ama miskiin yahay ilmuhuna wax haysto xoolaha ilmaha ayuu waalidku wax ku leeyahay waqti xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam anta wa maluka li abik adiga iyo xoolahaaga aabaha ba idin leh marka aaba iyo hooyo iyo xoolahay wax ku leeyahay ayagoo xoolaha wax ku leh iyo awow iyo ayeeye iyo ayagoo xoolaha wax ku leh xoolahay wax ku lahaayeen zakadeedii la siin maayo nafaqa u waajibays waa in la biilo wakadalika caruurtaada wixii adiga ka farcama markaan waxba haysanin masaakiin iyo fuqaraa baab qaraabo xiriirin ahaan bay laazim kugu tahay hadaad awood leedahay inaad biisho cidii marka lagu guba laazimiyayba nafaqadooda iyo biilkooda hadana zakadii ku bixi maya saasa la diiday wada marka waxay noqonaysaa inaad wax ku ilaashato tayib hadii marka ilmuhu oo waalidku biilayo ama awowha ahaado ama ilmuhu dhalay ha noqdee marka zakada lama siin karo laana zakadaasi waxay noqonaysaa marka inuu xoolihiisa ku ilaashaday ka soo qaad mesela bishan biilku siin lahaa oo $500 ah ee xoolihiisa ka go'ay lahayd yu zakadii uga dhigay zaku u gali $500 iyaga ka baaqatay xagee aad ya asagay u baaqatay sooma marka nooc waxa ku jira taqaatu'ul musaalih midda labaad haday caruurtu fuqara yihiin oo baahan yihiin asaguna marka wuxuu ku nafaqeeyo uusan haynin wax qaybsoo ma bahayaba wuxuu ku biila ma hayo wax yaro zakka ka go'day buu hayaa ilmihiina waa baahan yihiin ama mas'uuliyadda biilkooda iyo nafaqadooda cid kale saaranta oo mesela waa gabadhiisii oo nin la guursaday mesela oo xilkeedu nin kale saaran yahay kale xaaladka noocaas oo kala isagoo caruurtiisii iyo caruurtay dhaleen ay tahay culimada qaar baa qaba zakada waa lagu bixin karaa bal iyaga ugu mudan bay markaa leeyihiin culimada qaar kood tayib waxa kale iyadana la siin karaa bilin zakada haddii ilmuhu uu daymaysan ama dad isagoo heshiisiinaya uu mag soo qaaday xamaalada waxay yiraahdaan mag buu soo qaaday si uu qabaa'ilu heshiisiyo uu heshiisiyo ama isagii baaba daymoobay marka waa laga bixin karaa deynta waa laga bixin sida uu leeyahay ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah fi adhar alqawlayn fi madhhab ahmad wa ghayrihi xaalada kale iyadana la siin karo wax weeyaan bay leeyihiin hadduu yahay ilmuhu wax waa haystaa laakiin duulaan buu galayaayo jihaadkii iyo dagaalkii sharciga ah buu galayaa ya wa fi sabilillahi buu wax ku leeyahay laana wa fi sabilillahi da faqir inuu yahay miskiin inuu yahay sharti ma غازيga jidka ilaahay ku duulaya sakada qayb buu ku leeyahay muxuu ku leeyahay bimaana inuu dagaal aadayo haday halka ka soo galaan waa la siin hadii dadkii zakada soo ururinay intay galaan wal aamiliina calayha wax ku qaataan oo ay zakadaadi ku qaataanna waa okay وهكذا حالات noocaas waxa jirta marka fuqahada qaar kood sheegeeno ilmaha zakadii la siin karayo laakiin wixii xaaladka aan ahayn sida loo badan yahay qaarna ijmaaciga soo guurinayaan asalku wax weeyaan ilmahaaga iyo asalkaaga midna inaadan zakada siinin wallahu a'lam